السلام عليكم وإذن السلامي والعلاء خالقة كسو دوادا مقالكينا مانتا صاحب بيال وحان إذن كعسانا يا إنا جنالكي نو سبسكرايب جريسان سيدو كلان مقالكا دينو لان جريسان رونانتي مقالكان مانتا وحا إغسو عدسادي مد كمدا أصحاحي بدا كوحيران جنالكينا سيدو كلا وحان اسدي جراوا مقالي وباهنيين دمان دالنتا مانتا دوني دي جوكتا ugu horeen inta aan mawduuceena gudaha u galin waxaa ka codsanaya inaad wax yar ila dhageysataan qisadaani ku dhacday wiilkan waxaan caadadan saada ka bilaabanayso soo sameynay ayuu yiri muddo 13 sano ah 13 sano ayaan sameynayay yani waxa la dhigi karo qofkan ama ninkan dhalinyarada aqligiisa ay gashay yani marxalad fikirkiisa dhan ay noqotay caadadan wuxuu yiri 13 sano ee aan sameynay caadadan waligay laba bari xitaa ma aanan moogaanin يعني مقياس كرتن جهدك iyo tamarta iyo taaqad ka baxayso qofka caadadan sameeynaayo laba maalin weligeed ma moogaan ayuu yiri waan iska jiri waayay intaas waxa ii sii dheer ayuu yiri filimada xun ee aan daawanayay oo aan waliba yiri aad u xiisayn jiray mar walba yani heer xitaa wuxuu yiri waxaan gaaray xusuustayda ay iska lunto mar kale yarkan markuu leeyahay hadalkan yani xusuustayda iska luntay ma aan hadal uu iska leeyahay waa mid la ogaaday muuqaal waxaan ka hadalnay saamaynta ay maskaxdaada ku yeelanaysa muuqaalada xunxun iyo caadadan inay ku burburinayso inay ka dhigayso qof hamba ah yani inaad noqonayso kale wax lagu istaagay fikirkaadii xusuustaadii yani waxaad noqonaysaa qof meyd lugaynayo يعني حتى قفك أساق كنفسي أهان وحو إسو فيرنا إنه وسق يهي يعني حتى مركو ضد حجوجه وحو لينا إن أساق العركو إن فرط لغو في قايو وحو يري دادك شقا وذاك تأنهين حتى وإليا بجيرين أيوري سيدان سنه قناهي حرفيا أرين كان ومن لقد نحل عاداس إناد يعني مغناطو قف مهسن أد نقطة تركيز كذا ونجوجين يعني وحو يري وإليا بجيرين إنا أنسي قناهي waxaan rajaynayaa inaad wax un ka soo fahamtay qisadaasi runaantii dadka qaar ayaa mawduucan in laga hadlo u mooda inay tahay ceeb balse wax ceeb la dhaho ma jiro waa mawduuc aad iyo aad u muhiimsan runaantii dhalinyaro fara badan ayaa ku dhiban caadadaani foosha xun runaantii waa caado ay dadka badanaa ay soo mareen ilaa kii ilaahay u naxariistay mooye runaantii waxaa la yidhaahdaa caadadaani ama sida uu inoogu soo gaabiyey xarafka s runaantii ma jirto wax xishood la yidhaahdo fideogan waxaan isla tafaftiraynaa ama si fiican u qeexi doonaa caadadaani loo yaqaano siigaysi oo af carabi lagu yiraahdo alcaadatu sirriya ama loo yaqaano al-istimnaa sidoo kale luqadda ingiriishka lagu yiraahdo masturbation runaantii caadadaani waa caado ay dhalinyaro fara badan ku dhiban yihiin mid ka mid ah saaxiibada igu xiran ayaa iga soo codsaday inaan ka soo hadlo oo aan ka siiyo talo oo iskaga joojin karo caadadaasi foosha xun runaantii waxaa jiro dhalinyaro kale oo fara badan oo qarsanaya dhibaatadaani balse u baahan inay u helaan xal runaantii maanta waxaan rajaynayaa haddii aad fiidiyogan dhammaysato inay maanta kugu dambayn doonto oo aad hesho xalkii kama dambaysta ah ee aad raadinaysay ugu horeen waa maxay siigo siigada waa isqancin waa raaxaysi waa dareen shahweed oo ku yimaada qofka si uu biyaha isaga keeno haddii aan jilcino oo si kale u niraahno siigaysigu waa inuu qofka biyo iskaga keeno gacantiisa asigoo uu adeegsanayo xubintiisa taranka runaantii waxaan rajaynayaa inaad wada taqaanaan ama aad ka warhaysaan caadadaasi runaantii qofka inuu gacantiisa naagaysto oo isticmaalo oo shahwadiisa ku guto ayaa waxaa loo yaqaanaa siigaysi okay waan garanay ayaan filayaa waxa loola jeedo siigaysi haddaba maxay diinta ka qabtaa siigaysiga runaantii diinta waxay siigaysiga ka qabtaa in uusan bannaanayn bataatanba waa xaaraan oo lama oggola qofka inuu siigaysto ama shahwadiisa u isticmaalo gacantiisa runaantii waa mid khaldan in aad adeegsato waddadii lagugu talagalay wadda aan ahayn waddadaasi oo ah inaad gacantaadii aad u marto wadda khaldan aad u isticmaasho oo aad isku raaxo geliso oo aad naftaada ku dareysiiso raaxo aan jirin oo ay ka dambayso shalayto fara badan okay haddeer waxaan rajaynaya inaan isla fahamnay micno ahaan waxa loola jeedo siigaysiga waxa ay diinta ka qabto runaantii siigaysigu waa xaaraan oo ma banaana laguma ogola inaad samayso oo ma jirto marmarsi aad ku dhahayso way bannaan tahay okay waxaan rajaynayaa inaan intaas isla fahamnay waa maxay dhibaatooyinka laga dhaxlo ugu horeen qofka marka uu siigaysto oo uu shahwada iska keeno waxa uu khasaariyey laba dheecaan oo muhiim ah oo jirkiisa muhiim u ah waa laba maado waa fitamiin A iyo calcium fitamiin A-ga waxa uu caabiyaa indhaha iyo fahamka calciumkana waxay caabisaa dhismaha iyo adkaanshaha lafaha marka haddii aad siigaysato waxaad lumisay labadaas maado oo qaaliga u ah naftaada haddii ay labadaasi
maado lumaan waxaa dhacaysa inuu aragga indhahaaga daciifo, fahamkaada inuu cuslaado, lafahaaga inay jilcaan oo ay si fudud ku jabaan, awoodda wadnahaaga hoos bay u riddaa. intaan mawduuca hore u sii wadin waxyar aan isla dhegaysano shiikhaan. caada sirriya bay yidhaahdaan, dumarkuna way iska keenaan, ragguna way iska keenaan. waana shay nolosha u daran, caafimaadkana u daran, in biyaha maxaanku idhaha dariiqadii saxda ay dariiqa aan ahayn la iskaga keeno. dhowr cudur baa ka dhasha, cudurro waaweyn baa ka dhasha, rag iyo dumarkaba kuwii aad u isticmaala bahashaas. oo waxay yidhaahdaan cilmiyan maaddadan soo baxaysa 2 maado qaaliya baa ku jira, fitamiin A iyo calcium. labadaa maaddaa ku jira biyahan rag iyo dumarka ka soo baxa. fitamiin A-gu wuxuu aad u caawiyaa indhaha iyo fahmada iyo xasuusta. calciumtuna waxay u caawisaa dhismaha lafaha ayay caawisaa. marka ruuxu hadduu dariiqadii loogu talagalay dariiqo aan ahayn uu iskaga keeno, wuu indhadareeyaa, lafihiisuna si sahlan bay u jabi karaan, awoodda wadnihiisuna way hoos bay u dhacdaayoo socodka ma kari karo, in masaafo yar ma lugayn karo, xasuustuna hoos bay u dhacdaa, fahmada shayguna wuu ku yaraadaa hadduu qofku isticmaalo caada sirriya, rag iyo dumarkuu doonaba ha ahaadee. waxaan rajaynayaa inaan isla fahamnay hadalka sheekha. haddana ku soo dhowaada midda labaad, murugo iyo shalayto joogto ah. waxaa laga yaabaa inaad biyaha isaga keento wax ka yar 5 daqiiqo, balse waxaad muddo bil iyo ka badan dareemi doontaa murugo iyo shalayto. arrinta saddexaad oo ay sababto waxaa ka mid ah biyobax degdeg ah. biyobax degdeg ah ayay sababtaa. waxaa laga yaabaa haddii uu dareen yar ku galo inay shahwadu ku soo dhaafto oo aad ceshan kari weydo. midaasna waa dhibaato caafimaad oo aad gacantaada isku gelisay. sidoo kale waxay sababtaa mustaqbal xumo oo qofka waxa uu ismoodaa inuu guur dhan ka kaaftoomi karo oo uusan u baahnayn wax guur la yidhaahdo, oo gacantiisa ayuu xaas ka dhiganayaa. xitaa haddii uu mustaqbalka xaas guursado ma qancin karo, waa nin jilicsan oo gacantiisa isku dilay. marka waxay ku sababtaa qofka burbur qoyseed. sidoo kale waxaa ka yaraanaya qofka dareenka iyo rabitaanka galmada. waxay sababtaa xanuun xagga qoorta ah. run ahaantii dhallinyaro fara badan ayaa ka cabaadayo qoor xanuun. marka aad dadka noocaasi aragto waxaa laga yaabaa in xanuuno kale ay jiraan, waa laga yaabaa, balse inta badan waxay ugu badan tahay inuu caadadaasi qofkaasi ku dhaqmo, wayna sababtaa qoor xanuun. maxaa yeelay qofka mar waliba dareemihiisa ayaa zaa'id u kacsan oo wuxuu bixinayaa enerjigii u muhiimsanaa. marka maskaxda iyo waxaasi dhan waxay deynayaan symptoms ama dhacaano ayay deynayaan. marka taas ayaa sababaysa in ay lafta qoorta gadaal ay xanuunto. xanuunadaas iyo xanuuno kale oo ka fara badan ayaa ka dhasha. qofka sameeya caadadaasi ayaa dareemi kara, balse intaas ayaan ku sameeyaa xanuunada iyo waxyaabaha laga dhaxlo siigada. qodobkeena xaga wuxuu leeyahay sidee loo joojiyaa siigada. waxaan kula wadaagi doonaa sida ugu fudud ee aad ku joojin karto ee soo noqod la'aanta ah. sida loo joojiyo siigada ma ahan wax adag, waxaa muhiim ah oo keliya inay dhab kaa tahay. haddii aad go'aan leedahay kuguma adkaanayso in aad joojiso siigada. joojinta siigada waa mid ka timaada maskaxda, waa go'aan adag oo ka soo fula qofka. haddaba aniga kaama joojin karo siigada, balse waxaan ku siin karaa talooyin. talooyinkaas haddii aad raacdo oo ay hubaal noqonayso inaadan mar dambe siigaysanin. talooyinkan aan ku siin doono waxaa ka mid ah: marka hore, ka fogow daawashada sawirada iyo muuqaalada kacsiga leh. go'aan ka gaar, go'aan ka qaado joojinta siigada. jooji ka fikirka galmada oo isku mashquuli waxyaabo kale sida isboortiska, inaad wax cusub barato, inaad caado wax akhris ah samaysato, iyo waxyaabo kaloo wanaagsan. jooji ka sheekaynta filimada xunxun ee galmada. guurso haddii aadan weli guursan, haddii aad awooddo. haddii aadan awoodinna soon. nabiga sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi: yaa macshara ashabaab, man istadaaca minkum albaa'ata falyazawaj, waman lam yastadic facalayhi bisawm. qofkii awooda inuu guursado ha guursado, qofkaan awoodinna ha soomo. nabiga sala allahu calayhi wasallam ayaa sidaas yidhi. qodobka kale waxa uu leeyahay: haddii aad xaas leedahay ama aad xaas tahay, u muuji lamaanahaaga inuu dareen ku hayo oo aad u baahan tahay. qodobkeena kale waxa uu leeyahay: iska ilaali firaaqada iyo fursadda badan, iyo inaad keligaaga qol ku jirto oo aad cidlo ku noqoto. naftaada wax fursad ah ha siinin oo mashquuli. haddii aad naftaada firaaqada ay ka badato oo aad jaanis siisid nafsadaada, waxaa kugu dhex dhuuman doona ama waxaad la saaxiibi doontaa shayddaan
oo camalkaagii ayaa dib u noqon doontaa. Dhalinyaro fara badan oo caadadaas iska joojiyey oo waxaa la arkay dib ugu noqday oo sidoodii hore ka daray. Marka iska ilaali firaaq naftaada siinin, fursadda ka ilaali nafsadaada oo mashquuli oo waxyaabaha wanaagsan ku mashquuli, akhrinta qur'aanka, waxbarasho, sports, dhinacaasi hataa caalamiinta aad oo caalamiindee. Qodobkeena xiga waxa uu leeyahay iska yaree isticmaalka social media sida TikTok, maxaa yeelay waxaad si fudud ku arki kartaa waxyaabo qaaban ama fiidiyoowis anshax dara ah. Khaasatan TikTok iska xir, haddii aad iska delidi kartana iska delid garee. Maxaa yeelay sababta aan sidaas u leeyahay, TikTok waxaa ku soo batay naagaha isqaabiya iyo kuwa niigiya, kuwaasoo ku dareen gelin kara. Marka sidaas darteed ayaan ku leeyahay ka fogow wax kasta oo dib kugu celin kara caadadaani xun. Saaxiib, haddii aan marba kula wadaagay waxa ay tahay caadadaani, dhibaatooyinka ay keenaan iyo caqabadaha ka dhasha iyo waddooyinka lagu xalin karo, haddii aad haddeer kadib aad sii samayso waa adiga iyo nacasnimadaada iyo doqonnimadaada. Maxaa yeelay caadadaani waa caadada burburisay boqolaal kun oo dad adduunkan ka mid ah mustaqbalkoodii. Marka adigana haddeer jaanis ayaad haysataa, weli ma aadan dhaafin da'da 25 ma aadan gaarin, mana dhaafin. Marka haddeer waad dhowdahay, hadday ugu badato waa muddo 4 sano 5 sano ayaad caadadaani ku jirtahay. balse qisadii aan isla soo dhegaysanay 13 sano ayuu ninkaasi ku jiray. dad kale oo ka fara badan ayaa jiro oo intaasina ka badan, oo laga yaabay inay jiraan dad ku jiray muddo 50 sano ilaa muddo 30 sano. noocyadaasi dad ku jiray ayaa jiro. marka adiga haddeer weli waad yar tahay, da'daadana way yar tahay, fursad ayaad haysataa. caadadaani hadda iska baabi'i si aad mustaqbal ifaayo u samaysato. saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta halkaan ayaan jeclaystay inaan ku soo koobo. ciddii fikraddeeda inuu la wadaagaysa waxaan ka codsanayaa inay qaybta commentiga inoogu reebaan. haddii aad rabto inaan ka soo hadlo fiidiyoowis oo noocyadani ku saabsan ama fiidiyo kale oo aad u baahan tahay, qaybta commentiga noogu reeb si aan uga soo hadalno oo aan u arko fariintaada. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan idin leeyahay horumar wacan. idinkoo iska joojiseen caadadaani foosha xun, ayaan rajaynayaa in aad commentiga ugu soo qori doontaan. alxamdulilah, waxaan ka istaagay muddo 3 bil ah, muddo 5 bil ah, sanad, 2 sano. alxamdulilah, ayada dhan waan soo afjaray. idinkoo dhahaaya ayaan jeclaan lahaa in aad qaybta commentiga ugu soo qori doontaan. insha allah, haddii aad dadaalkan samaysan waad gaari doontaa. waxaan idin leeyahay nolol wanaagsan, horumar wacan, guul iyo barwaaqo ayaan idin rajaynayaa.